doorasho uga dhici lahayd san 2021 sida ugu dhaqso badan laguna dhameystiro heshiisyadii 17 Sebtembar waxa kale oo runtii aan soo baxaya hadallo aan runtii filahaynin oo ah in la bedelo goobtii madaxweynuhu ku baaqay tii hore wuxuu ku baaqay Samareeb waa la wada tagay koodii bisha tan hadda 15 Febraayo ee madaxweynuhu ku baaqay in Garowe la isugu tago oo caasimada Puntland magaalo nabadeed magaalo lagu yaqaano martisoorka waxaan filaynaa inaanay magaaladana qaban tan saddexaad waxa weeye waxa aanu rabnaa inaan in badan aan ku baaqaynay sidii madaxweynuhu ka sheegay golaha shacabka in mar walba ay madaxda dawladda federaalka oo madaxweynuhu ugu horeeyay diyaar u ahaayeen in dalka doorasho ka dhacdo iyadoo la wada dhan yahay oo lagu hirgelinayo 17 Sebtembar heshiiskii ahaa waxa kale oo tixgelinaynaa baaqi ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo inagula talinayay in aynu isugu nimaadno shirar dambe si doorashadu inagula bilaabto golaha ammaanku waa hay'adda ugu sarreysa dunida ee amniga iyo sharciga waxaanu isleenahay runtii inaynan maanta u baahnayn in lugta la jiido waxaanu u fahmaynaa 6 bilood ee soo socotay sidii lugta loo jiidayay doorashada in ilaa hadda loo jiidayo lugta laakiin dawladda federaalka iyo madaxdeeda waxa ka go'an in shir la isugu yimaado in Garowe la isugu yimaado 15 bishana la isugu yimaado si loo fuliyo heshiisyadii